gobolka Donbass ee ku yaala dalka Ukraine ee si gaar ah bariga dalkaasi ayaa waxaa ka soconaya dagaalo aad u qaraar oo u dhaxeeya militariga dalka Ruushka iyo xoogagga dowladda dalka Ukraine. Labada dhinacba maalmihii la soo dhaafay waxa ay gobolkaasi ku daabulayeen ciidamo aad u xoog badan. Dowladda Ukraine waxa ay doonaysaa in aanay looga itaal roonan gobolkaas oo ka mid ah gobolada ugu muhiimsan dalka Ukraine. Laakiin Ruushka ayaa isaguna waxa uu diiradda saarayaa in gobolkaas iyo gobolada kale ee dhinaca bariga dalka Ukraine uu isaguna gacanta ku dhigo. Laakiin Ukraine maadaama ciidamadeedu ay qaab jabhadaysan hadda u shaqeynayaan waxay u badan tahay in dagaalku uu muddo dheer qaato. Laakiin Ruushku waxa uu si wanaagsan dib uga abaabulay ciidamadiisa. Taasina waxaa la sheegayaa in durbaba ay wax badan ka bedeshay ciidamada Ruushka iyo qaabka dagaalka ay u gelayaan. Ka gadal markii sarkaal sare oo duqeymaha iyo dagaalka ku caanka ah ee la yiraahdo Alexander loo soo wareejiyay gacantana laga saaray in uu guud ahaan maamulo dagaalka dalka Ukraine ayaa durbaba la dareemayaa in Ruushka ay u badan tahay in dagaalka Ukraine uu guul ka gaaro. Sarkaalkan oo lagu turiyo in uu yahay kuwa ugu muhiimsan isla markaana college-ka lagu barto cilmiga dagaalka ee ku yaala dalka Ruushka ka soo baxay waana sarkaalka kaliya ah ee sida weyn ay ugu walwaleen reer Ukraine marka la sheegay in ciidamada Ruushka ninkaasi loo soo magacaabay. Waa nin ku caan baxay burburinta magaalooyinka, targetka cadowga iyo sida uu u garanayo amaba uu u qorsheynayo qaabka dagaalka guulaha looga keeni karo. Waa mid ka mid ah saraakiisha sida weyn uga kalsoon yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa haysta kumanaan kun oo saraakiil ah oo darajadoodu ay aad u sareyso, waxaana ku jira qaar looga talagalay in ay difaacaan oo keliya marka gudaha Ruushka ay cadowgu soo galaan amaba dalka Ruushka la soo weeraro, kuwaas oo aan loo dirin dagaal walba ha yeesheese ah ciidamo lagu kalsoon yahay. Donbass oo ka tirsan dalka Ukraine hadda shacabku ku nool waxa ay wajahayaan culays aad u xoog badan. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa gaaf wareegaya. Dhinaca kale ciidamada Ruushka ayaa xitaa la sheegayaa in ay adeegsanayaan wax walba oo u suurtagelin kara sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen guud ahaanba gobolkaasi. Waxaa sidoo kaleeto taageeraya kumanaan kun oo iyaguna sidoo kaleeto maleeshiyada iyo boqolaal markaa dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Ruushka ee degan dalka Ukraine ayaa iyaguna ah awood aad u xoog badan oo aan la luudi karin. Waxaa la sheegaa in ay yihiin kuwo aad u tiro badan isla markaana ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan. 7 sano u dambeysay Russia waxa ay si weyn markaa gacan u siinaysay xoogaggaasi mucaaradka ah ee gobolka Donbass ku sugan iyo gobollo kale oo ku yaala bariga wadanka Ukraine. Inkastoo xaaladda dagaal ee gobolkaasi ay haatan u muuqato midba kan kale uu u awood sheeganayo, haddana waxa ay u badan tahay in ciidamada Ruushka ay ku gacan sarreeyaan. Ukraine waxa ay haysataa weli taangiyo iyo hub casri ah oo ka soo gaaray dhinaca iyo dalalka reer galbeedka. Xukuumadda Ingiriiska ayaana ka mid ah dalalka markaa doonaya in Ukraine lagu caawiyo gantaalada looga hortago diyaaradaha iyo kuwa taangiyada lagu burburiyo. Markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa gaaray magaalada Kiev isagoo oo markaa kulan la qaatay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky. Muuqaal la soo duubay ayaa la arkayay labada hogaamiye oo dhex lugeynaya magaalada Kiev oo aad arkayso qaabka iyo sida ay colaadda u saameysay. Intii madaxdu ay socdeen ma jirin shacab badan oo maraya laamiyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kiev la yiraahdo. Magaaladuna waxay u muuqatay mid burbursan oo markaa ay colaad iyo xaalado dagaal ay ka muuqatay, maadaama maalmihii ugu horeeyay ee markaa dagaalka ay ciidamada taabacsan Ruushka ay gudaha u soo galeen, walow markii dambe ay ka baxeen oo ay dagaalku ama ay dib isugu urursadeen meel 25 kiiloomitir u jirta magaalada Kiev.
durbadii horeba waxaad moodaa ciidamada ruushka in ay fahmeen inaanay guul ka gaari doonin tafaraaruqa ka jira ciidamada ruushka gudahooda, taas oo ah in goobaha ay ka dagaalamayaan ay aad u fara badatay, isla markaana furmaha dagaalka mar walbo ay sii kordhaan ay adag tahay in guul degdeg ah la gaaro. ciidamada Ukraine oo si tiro yar loo qiibiyey ayaa meelaha qaar ka dagaalamaya, waxa ayna haystaan hub halis ah oo in muddo ah ay ku xakin karaan ciidamada ruushka. laakiin intay la eg tahay inta ay hortaaganaan karaan ciidamada dalka Ukraine xoogaga dalka ruushka? waa su'aal dul huwanaysa qof walba oo la socda siyaasadda iyo marxaladda adag ee ka jirta wadanka Ukraine. dabcan waxa ay wararka qaar ay sheegayaan in gobolada haatan dagaalada ay ku sii fidayaan ay ahaayeen goboladii ugu muhiimsanaa ee dalka Ukraine, waxaana la warinayaa in ruushka taangiyo cusub iyo 100,000 oo askari oo halkaa ku daabulayo. waxa uuna doonayaa in dagaalka ruushka uu ka socdo oo keliya furimo kooban si dagaalka loo xakamayo, isla markaana khasaaraha uu yaraado. Ukraine diyaaradaheedii dagaalka weli si toos ah uma dagaalamaan oo waxa ay ka baqayaan in ay dhulka soo dhigaan ciidamada cirka ee wadanka ruushka, maadaama hawada dalka Ukraine ay buuxaan diyaaradaha aan la arkin ee ay leedahay dowladda Russia. Ukraine waxa ay ka cararaysaa in dagaalku uu ka soo gaaro khasaaro aad u xoog badan oo dhinaca militariga la xiriira. midka hadda gaarina ma aha mid sahlan oo waxaaba la arki karaa taangiyada ciidamada dalka Ukraine oo gebi ahaanba la burburiyey. ilwareedyo ayaa sheegay in ciidamada Ukraine taangiyadoodu ay ku qarsanayaan meel dhulka hoostiisa ah si aan loo bartilmaameedsan, laakiin taasi oo ay jirto haddana ruushku waxa ay helayaan xog walba oo ku saabsan ciidamada Ukraine ee markaa ka dagaalamaya furmaha iyo goobaha ay shidaalka ka helaan. gobolada bari haddii gacanta lagu soo dhigo oo markii horeba inta badan gacanta ugu jiray kooxo ruushka uu taageersan yahay, ayaa haddana waxaa muuqanaysa in mar kale halkaasi lagu dagaalamayo. ruushku goboladaasi waxa uu doonayaa in si toos ah ay markaa u soo maraan saanada military ee la doonayo, waana labada jid ee keliya ah ay militariga ruushka ay saanada military u soo marto waa dalka Belarus iyo bariga dalka Ukraine. waxa uu doonayo madaxweyne Vladimir Putin in uu dagaalka guulka gaaro. haddii dowladda dalka Ukraine iyo ciidamadeedu inta furmahaasi looga soo guuleysto, waxa ay marka dambe sheekadu isugu imaanaysaa in la isku qabto waqooyiga dalka Ukraine, waana halka ay ku taalo caasimada 800 oo kiiloomitir oo isku weerar ka kooban ee Kiev la yiraahdo. laakiin dhinaca kale saas oo ay tahay ayaa haddana waxaa la warinayaa in dagaaladii dhacay saacadihii la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa aad u qaraar. Ukraine waxa ay dalbanaysaa guud ahaan caalamka in taageero military iyo hub looga deeqo. waxaaba imika jira in kumanaan kun oo mutadawiciin ah ama cadaqaatiyaal ah ay haatanba ka barbar dagaalamayaan militariga dalka Ukraine. madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa horey u sheegay in qof walba oo kala qayb qaata dagaalka ay dalkoodu ku difaacayaan ay u aqoonsan doonaan haliyey reer Ukraine. waxa uuna ballan qaaday maalintii dagaalkaas uu soo dhamaado in raggaasi lagu abaal marin doono gabdhaha ugu qurxoon shacabka reer Ukraine iyo lacag, guryo iyo wax walba oo qaali ah oo ay ku jiraan balladaha sharafta kuwa loo yaqaano. laakiin waxaa qof walba isweydiinaya